wafdigu hogaaminaya agaasimaha waaxda qorshaynta ayaa maanta soo gaadhay degmada Balligubadle. Socdaalka agaasimaha ayaa ku jahaysan xadhigga jarka xarunta gobolka Hawd ee wasaaradda waxbarashada. Ugu horeyn xadhigga jarkaasi waxaa ka hadlay gudoomiyaha waxbarashada ee gobolka Hawd Maxamed Sheekh Axmed, duqa magaalada Balligubadle Cabdi Imaan Jaamac, oo dhammaantood mahadnaq ballaaran u celiyay wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare Samsam Cabdi Aadan. kanoo aan ku furayno xafiiskii waxbarashada gobolka Hawd taasoo haraad iyo olmaleba loo hayay ma hadda hore waxa iska leh wasiirka waxbarashada Samsam Cabdi Aadan oo iyadu jeebkeeda nooga deeqday xafiiskan iyo dhismihiisa taas aad baan u mahadnaqay. waxaan ugu celinayaa wasiirka waxbarashada Samsam Cabdi Aadan waxay yani intii ay joogtay waxa ay qabatay ee ay noogu deeqday ha ugu horeeyo gaarigii gobolka oo aan wali hore u yeelan gobolka laba ayadoo ku xigtay xaruntii gobolka waxbarashada. horta wasiir kasta waxaan ka doonaynaa Soomaaliland jooga xaruntiisa iyo gaarigiisa oo shaqeeya iyo xafiisyada shaqeeya. gabagabadii madashaasi waxaa soo afmeeray agaasime Axmed Quule iyo badhasab ku-xigeenka gobolka Hawd Khadar Xasan Xirsi oo sheegay baahida loo qabay xarunta waxbarashada ee gobolka Hawd. marka la eego in xafiisyadan halkan laga dhisay in hore uga jirin waxa yaa inoo dhisay baan markii hore su'aasha koowaad baan weydiiyay yaa inoo dhisay inuu mahadnaqnay marka waxa wasiirka wasaaradda waxbarashada Samsam Cabdi Aadan ayaa inoo dhistay baa leeyahay. marka aad iyo aad baan ugu faraxay inay amaantii wasaaradda waxbarashadu yeelanayso. Samsam halkan waxa uu soo yabiyeysay cidla ku dhacaan ila kullu waa loo soo tartamay maanta sar ma yahaateen. waxaan leeyahay anigu xayisiinaynin ninka ka madaxda iyo inta guddiga kula jirtay shirkadiisa ka tirsan gobolka Hawd waxa uu dhiibtaan Soomaalilandna tartamada ha u ogol. inta hadaan ka gudbo waxaan ilaahay ka baryaa xafiiskan ay maanta fadhino ee la furay ee guddoonka waxbarashada gobolka inuu noqdo kii intifaac yeesha ee loo aayo. Abdiraxmaan Samriye on Cable TV gobolka Hawd.